markii ay la hadashay si ay u qanacdo ay hadalkiisa maqashay oo ogaatay in uu asagii yahay qofka soo diray ninkan ayaan waxaan weydiiyay bay tiri maxay tahay sababtaad iigu soo dirtay ninkan wuxuu yiri waa xanuunsaday xal markii suuqeen dambeysay kadib ayaan xoog u xanuunsaday welina waa xanuunsanahay sidaa darteed ayaan kuugu soo diray ninkan saaxiibkaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaamaa qeyrta sharafta leh meel kastood ku sugantihiin nimcayo baraaro ku waara galab wanaagsan maalin wanaagsan waqti kasto ay ku tahay wanaagsan waa anagii iyo mar kale waa maanta iyo muuqaal kale oo cusub oo aad u xiiso badan iyo qisadeeni qaybtii labaad nagala soco halkan videogana share garee xaqiisa si walaalaha la share garee subscribe ku yar iyo subscribe la soo saaro. waxay noo mareysay qisadeeni ayadoo gabadhii ninkii ay la hadashay oo ay wacday oo ay tiri inaan la hadlaan rabaa intaanan ku raacin ninkan taksiilaha oo airportka ku sugayay. ninkii ayay la hadashay waxay xaqiijisay in maaragtay ay laba qof kale yihiin qofkan iyo qofkii ay isla hadli jireen. dhibaatooyinka runtii waxay ka mid tahay dadka kala maqan guurarkooda waxyaabaha shakiga badan gelin karay ka mid tahay. marka ay la hadashay ninkii wuxuu ku yiri waa xanuunsaday tacbaan baan ahay xala aad baan u xanuunsaday marka ninkan saaxiibkay anaa ku soo diray soo raac. wuxuu ninkii la sii socdaba tagsigii baan raacay bay tiri wuxuu sii wada muddo hal saac camal ayay airportka u jiray magaalada aan ka soo degay oo aan ku socdo ayuu u jiray airportkan ka soo degay ayay tiri. kadib hal saac kadib ninkii gaarigiisa uu baakin dhigtay xaafadii ayuu geeyay gabadhii. xaafadii markuu geeyay gabadhii waxay sugaysay iyadu oo ay rajaynaysay si kastoo uu xanuunsan yahay ninka inuu irida kaga hor yimaado oo si farxad leh oo ku qaabilo dad maaragtay laba qof oo maanta isugu horeyso lamaana isu guursaday isku faraxsan aroos safar dheer loo soo galay. yacni waa qiyaasi kartaa qof intaas oo kilomitir 100 kilomitir ama 1000 kilomitir kuu soo jaray oo safar dheer habeen iyo maalin ama laba maalin kuugu soo jiray adiga dartaa. waxay filaysay farxad aad u qurux badan oo ubaxyo flower uu ku soo dhaweeyo inuu ku soo dhaweeyo laakiin ma aysan dhicin. ayadii baa ishayn weyday oo waxay sameysay markii albaabka uu saa uga furay wiilkii kalena uu la socdo oo boorsada u wado ayay hagaraysay oo saaxabadka u gelisay. kadibna yacni waxay dareentay oo aan dareemay bay tiri in uu yacni xoogaa qalbigiisa uu xoogaa uu shoogsan yahay oo uu diidan yahay. waxba dhiba aniga markii umaan arkin bay tiri adiga way iska nasatay waa iska qadeynay bay tiri qadu iisii kariyay si fiican buu iisoo dhaweeyay laakiin wuxuu yiri bay tiri ninka hortiisa maxaad iigu hagaraysay ood xabadka ii gelisay ceeb weeye inaad nin horti xabadka iigu geliso. aniga aad ayaan u xishooday oo u qiirooday bay tiri waxa ku yiri bay tiri waxaas wax weyn ma ahan wax yacni hadda la buunbuuniyana maahan aniga farxad iyo jacayl iyo xiise aan kuu qaba darteed ayaan xabadka ku geliyay ninkayga baatay gurigaygana waan imid maxaan dambiyahoo sameeyey maya aniga iyadoo dad ila joogaan ma doonayo in xabadka la igeliyo waxa weeye arrintaasna waa qalad. okay dhib ma lahan ayaan ku yiri bay tiri kabacdi maxaa dhacay. kabacdi waxaa dhacay oo ninkii uu bilaabay in uu falanqeyn ka bixiyo gabadha qaab abuurkeeda maadaama ay dadkanu yihiin dad aan si toosa isku arkin markii horeba oo maxaa la oran jiray qadka ama midiyaha markii horeba la iska bartay oo fogaan araggaas la iska guursaday oo video iyo sawir la isku diraayay un la iska caashaqay. runtii gabadha waxay tiri aniga gabar caadiya ayaan ahay wax iina ama wax cilado aan leeyahay ma jirto iyo wax ceeba toona. gabdhaha Soomaaliyeed kuwooda waliba maaragtay qurux waaw la dhaho qoftaan aad bay u qurux badan tahay la dhahana malihi bay tiri qof hadda fool xumo lagu tilmaamana ma ihi. gabdhaha caadiga oo sida normalka ah oo gabdhaha Soomaaliyeed hadday dhirir ka tahay hadday jir ka tahay hadday yacni dhinac walba tahay ayaan la mid ahay bay tiri oo wax ceeba ama wax iinaho aan leeyahay oo hadda maanta aan leeyahay ninkan wuu kugu dhaliilay ma jirto oo aan leeyahay bay tiri alxamdulilah ilaa 6 laxadna wuu ii dhammaystiray caqli igu filan qof leh ayaan ahay laakiin ninkii wuu isaluugay wuuna iga iimaan daray bay tiri oo aad ayuu yacni qaab abuurkayga baa cajabin waaya calaa iyo kulli xaal ayay tiri.
marka ayuu wuxuu falanqeyn ka bixiyay inuu yiraahdo wajigaagu saan muxuu ugu samaysan yahay, halkan meesha wajiga jabhada ama meesha fooda oo wajiga salxanyaha maxay saan kuugu soo dheer tahay, maxay saan la tahay, waad xaggaa tahay, dherarkaagu intaan u maleynayay maahan. wax markii horena waxay tiri wax aan ka qariyay haba yaraatee ma jirto, inta uu dherarkaygu yahay anoo taagan baan sawir u soo diray, mitarkaygu intuu yahay waa u sheegay. yacni qof dee laba qof oo sawir guud kala haysta oo intii aan iska arki karnay oo macquula iska arkay ayaan ahayn bay tiri. laakiin ninkii wuu imaan darooday, wuu qaawis